بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله. وحان إن شاء الله تعالى جعلهاي ما أنت عاوة نبصعد وجوه إن انكهض له موضوع كسابسا قدس. waxaad ogtihiin madaxweynaha dalka Mareykanka oo dowladda maanta adduunka ugu culus ninka madaxa ka Trump baa dhacdaa Donald Trump wuxuu soo saaray qaraar dhahaya magaalada Al-Qudus waa caasimadda abadiga ee dowladda Israa'iil. marka arintaas maxay ka dhigan tahay, maxaase ka dhalan karaa, maxaanan mowqif ka qaadan karnaa dad haddaan nahay muslina oo qadiyadaasi ay gaar u khusayso. waxa weeyaan walaalayaal, waxaan jeclahay marka hore inaan tilmaamo arrin dadka bini aadanka waxa ay kaga duwan yihiin makhluuqaadka kale ee dhulka amba kownka ku nool. bini aadanka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu u abuuray in ay kownkan ka taliyaan oo caalamkan aan arkayno inta aqligeenu gaadhay, maankeenu gaadhay, waxaa jira insaanka ayaa makhluuq u abuuran inuu hogaamiyo kownka. ولذلك إلهي تبارك وتعالى قرآن كيسا وحو نغو شاقي إن نغو ركبي أرنتا وحي كيني كري إن دونيدا معمولي كرنو وحو نوت المامي صدح الريموت أو لفدبرا كو وحو إلهي نوت المامي إن أدون كان لو سخري التسخير مسألة الله يدهدو وسخر بقرآن كبوحدا لكم الليل والنهار الشمس والقمر كونك دنبا إن ليس خيرين إنكو إني شقيا كونكو ومسألة دوية. مسألة دلبات وحوي إلهي تبارك وتعالى وحو إنو شاقي إنو مركونا أبوري إن يجري وحان إني أبوري إن أدونك رسالة أن إني ديبات كو شقي سانود representation أني إما تشان أدونك دحليسا دولكا قرآن كما حاكو قرآن جاعل في الأرض خليفة dhulka waxaan keenayaa dad aniga imatala. ambaba siduu quraanku yiri wasta'marakum fiha, dhulka inaan camirno oon ayihiisa ka talino. waa arinta labaad weey. arinta saddexaad, markii aan fahanay annagu inaan muslim nahay oo amarkii ilaahay qaadanay, waxa inoogu biirtay arin saddexaad. arintaasi waa maxay? inaan noqono dad wanaaga amra xumaantana reeba. macnaha maxay kala tahay? inaan waxa xun oo dhan diidno. waxa xuni dadku waxa u yaqaanaan khamriga, ziirka, waxaas u yaqaanaan, bas inta baa laga dhaadhicin xun tahay. la, waxa xuni waxa weeye مثلا wixii xun aqeed ahaan, wixii xun diin ahaan, wixii xun siyaasad ahaan, wixii xun dhaqaale ahaan, wixii xun bulsho ahaan, wixii xun moraal ahaan, wixii xun ilbaxnimo ahaan inaan la dagaalno. waxa ka soo horjeedo dhan wanaagsanna inaan la jirno. marka qofka muslimkii ma ogolo qof bini aadana in la dulmo. nahnu ضد الظلم, waxaan ku horjeednaaba dulmiga. nahnu ma'a al-adl, waxaan la jirnaa cadaaladda. nahnu ma'a al-karama, bini aadamka in la karaameeyaan la jirnaa. nahnu ضد الإهانة, in bini aadamka la yaraysto iyaan ku horjeednaa. ولذلك islaamku markuu civilization ahaa uu adduunkan xukumayay, waxaa ka dhacay waxyaalo dadka bini aadamka madaxooga ka weyn waqtigaas. Umar ibn Khattab isagoo dariiqa socda iyuu la kulmay nin yahuudiya oo oo sadaqaysanaya. qalbigii baa jabay Umar, sidoo u sadaqaysanay qof weyn, walow gaal ha noqdo, yahuudi ha noqdo, waa qof bini aadana. wuxuu ku yidhi Umar, maxaa kugu cadibay xaaladdan inaad sadaqaysatid? wuxuu markaan yaraa iyo markaan weynaadayba waxaad dowladdu iga doonaysaa jizya, ampo, inaan cashuurtii qofka aan muslimka ahayn uu bixiyo
muslimkana zaka laga qaadaa, qofkaan muslimka hayna jizya laga qaadaa. idan jizyadii baa isugaysa buuri, halkeen ka keenaya? Cumar bin Khataab fiqhigii uu fahansanaa diinta ayuu ku laabmay. wuxuu waa dulmi inaad markaad yaraydna lagaa qaado, markaad weynaatina lagaa qaado. waa inaa wixii markii yare lagaa qaaday markaad weynaato adii lagu masruufo. markaa buu Cumar soo saaray marsuum declaration, wuxuu soo saaray marsuum wareegto. wuxuu yihi qof kasti oo da gaadhay oo ku nool dowladda aan xakumo ee muslimka ah wuxuu xaq u leeyahay markuu da-daa gaadho in baytalmaalka muslimiinta laga siiyo wax noloshiisa kabaya. okay, marka muslimiintu maxay ahaayeen dad xataa u fikira xayawaanka, u fikira geedaha, u fikira dhirta, u fikira aadmaha, u fikira kamuka inay hagaajiyaan. ilaahay baa subxaana laa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha. ilaahay markuu hagaajiyey dhulka ecologiyan, markuu hagaajiyey ecologiquement, inaku ha xumayna buu ilahay subxaanahu watacaala. idan qaacidada baan ka dhaqaaqaynaa, waxaan ka dhaqaaqaynaa inaan nahay dad ilaahay halkaa dhigay. qadiyadda qudus markaan ka hadlayno, qadiyad maaha islaam una, waa qadiya islaamiya number one, laakin waa qadiya insaaniya, waa bini aadamnimo, waa qadiyad kas ka hor imanaysa xuquuqda insaanka, iimanism, dadnimaday ka hor imanaysa. lidalika ayuha alikhwa, anigu waxaan jeclahay, waxaan aada ula yaabay baryahan dambeeto, waxaan dhegaystay 20 sheekh oo khudbadeynaya oo adduunka islaamka ah. masjidkii xaramkaan dhegaystay Maka, jimcihii dhaweyto wuxuu ka hadlayay birul waalideyn, khatiibku samafalka hooyada iyo aabaha. yani wuxuu ku jiraa waxa la yidhaahdo ya wuxuu ku jiraa offset. qofku marka maaragtay kubadda la ciyaarayo ee uu galo orjey baa faransiiska, af ingiliishkana offset baa dhaha, offset buu galay ninkaasi. sheekh dhan oo xaramkii Maka ka khudbadeynaya, xaramkii saddexaad baa la haystaa Qudus oo laleeyahay waxaa la siinaya dad kale, kamuu hadal birul waalideyn buu ka hadlay. kii Madiina wuxuu ka hadlay ya isbedelka jilaalkii xagaaga. wax naajiro qof kastiba garanayo oo ilmaha yarba in loo sheeganayn inuu waqtigiisu bedelayo yuu ka hadlo, wax weyn ka dhigo, af carabi weyn ku hadlayo, la aayaatin uli albaab, ilaahi baa cilmiyo waxbuu ka sheekinayaan macno ay leedahay ayaan garanayn. kaasina muxuu sameynaya addiin afyuuna shucuub, opinion diinta dadka waa lagu seexiyaa. diintu muxuu Maxamed Marcus waa daroog dadka lagu daroogeeyo, uu daroogeynaya dadka, waxa haystu ilowsiinaya sababa amar lagu siiyey. okay, waxaan dhegaystay sheekh saddexaad oo ka hadlaya mawlid nabiga waa la dhigi iyo lama dhigayo. mawlid nabiga soo dhawan waxay haystaan dad dhintay, Ibnu Taymiya iyo rag buu haystay, uu nafta ugu yimid, uu cadaabayay, uu lahaa waxba ma garanayaan, cilmi male. laakiin Trump uma jawaabi karayo, wax kaloo dadka waa sheekeynaya. mid saddexaad baan dhegaystay wuxuu ka hadlayaa imaam Xuseen ibn Ali ibn Abi Talib inuu nabigu jeclaa, in la jeclaado waajib ay tahay. waan garanayna nabigu jeclaa, inaan jeclano waajib inagu tahay, laakiin taasuu ku celinaya, uu dagaalamaya, qadiyad buu nooga dhigaya waxaas. ku afaraad baan dhegaystay wuxuu ka hadlayaa in lala dagaalamo dadka irhaabiyiinta ee antigristiga, laakiin kama hadli karayo irhaabiyiinta dowladaha ah. qof yaroo isqarxinaya oo dad isku qarxinaya oo ciyaala suuqa oo in muslimiinta laga qabtaa yuu ka hadlaya, waa sax. laakiin inuu nin madaxweynaha oo Masar xakumo si sirrado inuu ayaan dilay wax ka badan 6,000 oo qof, kama hadlayo. 6,000 oo qof buu Raabica ku dilay, tirada dad baa badanayaba. nahdana 2,000 oo qof buu ku dilay bidamin baarid, dhiig qabo wuu iska dilay. 60,000 in ka badan baa ku xiran xabsidiisa oo ay ku jiraan madaxweyne shicibku ay doorteen, ay ku jiraan dad caqli leh oo cilmi leh, ay ku jiraan raggii jaamicadaha ugu waaweynaa, profesorada, culumadii ugu waaweynay baa ku jirta. lagama hadlayo. waa irhaab dawla, waa irhaab dawla. qof ka hadlaya ma jiro, wuxuu ka sheekeynaya waxaan dadka biniaadamka looga sheekeyn. markaas kuban dhegeystay, marka waxaan ogaaday in ay jirto 3 siyaasadood oo u baahan inaan si guna u eegno. siyaasadda koobaad waxaa la dhahdaa siyaasatu tanwiim,
muslimiinta in la seexiyo see loo seexinaya maqnaatiisiyan maqnaatiis lagu seexiyo arrin la wado dadka caamada ah inaan la seexiyo oo nin walba loo sameeyo qadiyad yar u gaara qadiyad u gaara soomaalida lagu mashquuliyo dowlad goboleedo bas dowlad goboleedada ay moodaan inay dowlad helayaan waaweyn iyo kiiba kala xuruubaya taaba loo sameynaya dadka waxaa loo sameynaya dadka qaarkood mukhadaraad jaad baa loo sameynaya soomaalida reer Djibouti oo kale khalaas markay asalka fadhiistaan waxay wada galayaan hurdo macaan wada galayaan waa tanwiim adduunka islaamka waa la qaybiyey system baa loo sameeyey fayrus mix wadan buu leeyahay siyaasad labaad baa jirta siyaasadda labaad waxaa dhahdaa khudo la dhigay banton maaragtay Breton khudado socdaa jirta ta ugu dambeysay 2008 la dhigay oo la dhahdo xuduud dam in dhiigga muslimiinta uu daato iyo ku isnacaan marka way iloobayaan qadiyadahooda waaweyn muslimiinta maxaa dhibaato haysata dictatorro way iloobayaan dib u socodnimo way iloobayaan gaajo way iloobayaan dhulkooda la haysto way iloobayaan ileen dowlado badan baa la haystaa iminka Iraq waa la haystaa amba Iran baa haysata amba Mareykan baa haystaa Suuriya waa la haystaa maaragtay Yemen waa la haystaa Soomaaliya xor la haysto ayay tahay wadano badan baa la iibinaya sida Djibouti oo kale Shiinaha iska shida Shiinaha meel dhota shirkadii Shiinu way iibsatay orada Djibouti say u idishahay annagoo iska dul farfadhina hoojaadkeena iska cunayna ayaa wadankeena la qaybtamay shirkado waaweyn oo Shanghai fadhiya iska iibsaday dadkii marka waxa lama socdaan dhiiga daadanaya ka cabsoonayaan bas xuduud dam dhiiga hadda taradhay ninka khudada dhigay wuxuu yiri waa inay muslimiintu dhiiga marka ay carabtu ay daadiyaan waa inay kala qoostaan dadku isnacaan anta saddexaad waxay siyaasadda saddexaad waa siyaasadda marka had iyo jeer waan qoraa dadka carabiga axad u akhriya waxa dhada siyaasatul istixmaar dadka in la dameero laga dhigo dameerku muxuu sameeyaa dameerka cunta la siiyaa acabna waa la siiyaa kadibna waa la raraa inta la dhargiyo baa la raraa annaga markaa maxaana loo sameeyey waxaana loo sameeyey waxa dhahdo waa nii fikiraynaa cuntaan nii keenaa biyo waa nii soo wadnaa kooraan baa nii soo wadnaa bariga dhaca waxaan ka dhiganaa meel dahaba dameeraad tihiin suga waxaan nii soo wadno bashar ma tihiin هذا سمع استحمار بعضها dadka han dameerayno inayna dareemin inay dameerayeen inay bini aadayeen isku haystaan saddexdaas siyaasadood yaa socota sidoo faanaa siyaasadaas qudus inta ka hadal politiga inta leeg sidoo faanaa waxay nooga baahan tahay inaan horta sameeyno akhris dad aan waxba akhriin wax ma fahansano القراءة ضرورة أخرجت والناس سير مركان لا أخرجت والناس سير وحويان شاكدوا ما أخرج إلى شاكد سنو ما لها لفرديو هدر الله وضو يا أخي وات برات سكول قلم بعد قادتي بوك بعد قادتي جامعات بعد تكتي بعد قادتي أما لسانس بعد قادتي وحضوني بعد قادتي خلاص وتكب بعد المرحلة دي أميتها وحوال أخري ده أخري ما حد أخرني آخر خططك بلانيج أدونك اللي جوه نعومي تشوفي ذيك على آخري وهذا آخر ده نكب بحي لعبة الأمم وما ده صار لو عياره أحجار على رقعة الشطرنج آخر كتاب هذا واجد الشاك ضدك ولو عيارها دولته مثلا بيسميان قبيل كان سوقات قبيل كان إيري أفريقيا كا إياك نسأل بالغو سميان ولو إيري بالكاني أوكي ما ندويته بقر السعودي وحو ياري مدحوينها فلسطين عباس wuxuu u sheegay waxa la safaqat alqarn in la soo wado system dhan oo Falastiin lagu baabiinayo Sinai iyo Gaza la dajinayo Falastiiniinta ayuu sheegay ma aqbali misma haddaad aqbali weydina waa lagu badili waxa tahay jida shak shadranj daxlaan baa ku badili saas ba adduunka hadalka baa la isku hadlayaa meel maartay daaha la sii deysanayaa saas baa la waxaas buugaan bay ku qoran yihiin iqra akhri litafham sad u fahamtid litaciya sad aqli u yeelatid litaakhudha qarar markaana decision qaadid dolashu ma ogola hadeeto qof
mutafarij spectator waxun daawanaya alla maxaa la yiri alla maxay tiri halkeena loo wadaa halkeen u soconnaa laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwwa halka waa la dhaafay khalaas يجب أن تقرأ وأنا أخرج موش الديان وحوري عربت يا مسلمين وحبا ما أخريان ورنتي ويان نين كان لين هذا غزالي بكده وحوري هذا أخريان ما فهمان وحكده يمد حسن ترابي وحوري هذا فهمان ما شقيان حما قطعان وحكده يمد دارق سويدان وحوري هذا شقيان شقدا مسوبيان شقو ونكسون وقروح بدن ما قبطان اوكي marka la budda min al-khira arinta labaad ee muhiimka waa maxay ee loo baahan yahay wax weeyaan waxa la yiraahdo at-tasaaquf wa adduunka culture-ya Canada sidoo loo dhisay wax barta waa ina wax baran ikhwaani fillah Canada wadankan sidoo loo dhisay aan deganahay imika maskaxda dhistay la sheekayso sidoo loo dhisay Shiinaha maanta adduunka inuu qabsado ma usitoon sidoo loo dhisay مثلا wadanadan soo kacay Japan suuqa soo baxay kriiskii ilaa ee lagu tuuray bom atom nuclear baa lagu tuuray sidee loo dhisay Jarman qabla takhriib ماذا فعلوا هؤلاء القوم وبني ادم سغال bay ku dhashay waxa dawladaha way naga waaweeyeen way naga cilmi badan yihiin way naga aqli badan yihiin sheekada loo baahno waxaan u baahanahay waxay ku gaadheen halkaas inaan helo tasaaquf baa dhacda okay ikhwani waxaan u imanayaa qadiyada qudus oo saddex kalmood ka dhaxayo maanta muslimiintu markay qadiyada qudus laga hadlay waxaa soo baxay laba arimood waxaa soo baxay khiyaanatu al-hukam wa yaqdat ash-shu'ub dad fara badan baadada shu'ubta muslimiintu way dhinteen waxa ma tarayaan been inta taa soo baxday shu'ubtu way soo jeedaa waxa ka dhacday wadan yar oo maqrib dhada Morocco 7 mudaharaad ba ka dhacay ilaa magaalooyinka yar yar wadan kale dhada Pakistan ilaa ay hijadaha ugu yar yar oo حتى مقع القدس أنقرنين والله ماشي النبي لقى مارت لو ديلي مصر رسول الله إلها يا صباح صلى الله عليه وسلم ملايين الملايين مركا محانا الصباح دي هذا لا صح الكلمة ده يقضت الشعوب شعوب تويسوجدا من دنجة أو مروكو تالا إلى جاكرتا مقدشة لقى بنا محمل كستي أوكي ومضو وينوليه وأنا محاكا لو أغيالا خيانة الحكام dadka xukaamtu waa beenalooyin shirka jaamacadda carabta ka dhacay khudbadaha fiican la jeedinay waxba kama jirin boqorka Bahrain wafdi buu diray iyada oo la leynaya shacabkii Falastiin ay banaanbaxayaan wuxuu waxa iga gaarsiisay Netanyahu inaan raali ka ahay waxa socdo dhan xagana shirka u fadhiyay isagana waxa ka dambeeyay Sacuudiga iyo dawladda xisaarka yaa ka dambeeyay okay waxaas oo dhan waa filim aad lagu sameeyay weeyaan waa khaa'iniin waxa ugu weyn ku hadleen maxay waa idaana cambaareen way cambaareen halka ma dhaafi karayaan inta waa loo ogol yahay cantariyaad ka dhada inay sira qalqaliyaan ay khudbadaha macaaniyaan waa loo ogol yahay laakiin halka ma dhaafi karayaan marka maxay noo soo baxay khiyaanatu al-hukam yaqdat ash-shu'ub laba maxaa kaloo ka soo baxay waxa ka soo baxay madaxda la doortay raganimadooda kuwa aan la dooranna doqonimadooda ama kuwa xaday doorashada ma hadli karayaan Netanyahu markuu hadlay waxa la hadlay Erdogan waana la doortay madaxweynaha Soomaaliya waana la doortay si fiican buu hadlay ma salaamin Netanyahu waa qof shacabkiisa la doortay intuu doona hal kaado ninka aan la doorin ra'iisul wasaaraha Malaysia waa la doortay kelmad cajiib uu isagu yiri waxa weeyaan Indonesia waa la doortay kelmad cajiib uu idan waxa halkaana ka soo baxay kala doortay qiimaha uu leeyahay kala dooranna waasaan ku qoray article aan qoray wuxuu la mid yahay waraaqad geed ka soo dhacday oo dhulka soo dhacday qiimo ma leh ay macno uu leeyahay amaama naas ma jirto taasina waa inoo soo baxday arinta saddexaad ee inoo soo baxday waa maxay al-hazima an-nafsiyya waxa jirta waxa la wadaa wax dhado in muslimiinta lagu sameeyo hazimad wax dhado in jabaan laakiin hage psychological ahaan hazimada askarigu macno ma leh waa la jabaa waa la soo toosaa laakiin hazimada halista waa maxay واتا هوستا لغا جابو اي اقبشد قبول الهزيمه ان لغا ادكاداي ان تهي ضحيه ان لغا خوق بدن yahay inaad ogolaatid okay ilaahayna quraanka wuxuu inoo sheegay wuxuu ina baray kownkan sunan buu ilaahay dajiyay oo xakunta laakiin waraa sunan kana waxa ka dambeeya rabbun yahkum ilaah xukumaya yafcalu ma yasha marka uu doono ha iloobinu kuleetaa
laa mucaqiba lixukmi kownka anaa ka amartu kaalaya melik waa aniga liman ilmulk anaa boqora kuwa kale boqora ma way u egyihiin boqorada idan waxaa markaa muhiim ikhwaani fillah hadihi alhaziima inaan iska ilaadno inaan jabno haziimada xadaariga ah psychologicalka ah iyada muxaadaraan ka samayn doonaa insha allahu tacaala sidee baa la iskaga ilaaliyaa in la jabo marka maxay nooga soo baxay aggan maantana in la doonayo haziimo laakiin haziimada way fashilantay waxaa fashiliyey dhalinyarada reer falastiin waxaa fashiliyey caalamka islaamka o dhan muslimiinta o dhan bal waxaa fashiliyey bini aadanka nabadda jecel canada way diiday qaraarka trump australia way diiday faransiiska uu diiday jarmalka uu diiday kulli way diideen xataa wadanadani jarmalka oo kale iyo australia iyo canada iyo waxay ka qaraar fiicnaadeen madaxda carabta iyo muslimiinta qaarkood iyo ka qaraar fiicnaadeen idan almujtamac duwalina waxaa ma dhegeysan dhaga dambeera ku maqan bay dhahdeen idan markaas waxay taasi kutusaysaa in aynan alcaalamu kulluhu lam yamut bacd caalamku weli ma dhiman الضمير الإنساني ما زال حيا ضمير إنساني ونول يهي لكن واحد بانتاي إن لقى فائدته ولذلك أيها الإخوة حين نقول يا تذكر مسلمين مركز تيجوغان إن قدس لو أركينته قضية القضايا قضية دكوينين كل قضية تهول دون القدس قدس وكيرته سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلهي أبركي قدس إهدريهيك وحنا أبركي سبحانه وتعالى وأرضي وقرش نبي عيسى نبي موسى كصباحي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو هبين دوفي وحصل قبري النبي إبراهيم كويلا حبيب الله خليل الله أبو الأنبياء هل كاسوكو أسنيه ومرابع الأولياء أولياء ربكو أسن شبر والبتاكة والبصحابي بكو أسن حتى أولي عبد الحميد يلي ودول آنا لإيبين كرين ووقف إلهي سبحانه وتعالى هل كاسان كسي ودي دونا موضوع صوص عدون كهدي دونا إن شاء الله تعالى أما محاضرة عن قبل دون وكهليا سيدا لسكا إلاليو إلا جابو نفسيا سيكولوجيكال هان إيو وحل لغو دويو مركي مشاكل نفسية وحضارية وعدو أي صوت طوران سيدا لسكا لغو هرتغا إن شاء الله تعالى انت تاسكو صونا قولنا وحاين نغتغيا سيدا ينولي كولانتي السلام عليكم ورحمة الله